بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وادي السلامي ولا لها channel كنا كحول السمكو كنا كلشر وحنا أنت هبينو تهبي وناكسن أنت مالو تين مالو وناكسن كور كستينو تشوجنا يكوب كستينو تشوجنا بالله سبحانه وتعالى خير بين ويدي سنينا ولا على يالو أنتي نعسب السود دوادا أنتي نهرة تشوجتين السود دوادا لما أنتي سود دوادا وأنا مهتسنتين شيرتينا إيا لايكتينا إيا كومنكا إيا سبسكرايب كقروح بدل ما شاء الله عاد بوج مهتسنتين intaa ka bacdi maanta waa barnaamijkeennii murtida afka hooyo aynu soo dayno maalin kastoo sabtiya iyo maalin kastoo axada markaa kan waa barnaamijkeennii sabtida maanta barnaamijkeenu wuxuu quseeyaa laba meelood meel waa maahmaahdii hal xidhaalaha la iskaga tagayay meelina waxa weeyaan saddex shay oo la iska ilaaliyo barnaamijkeeni saddex yaa faraha haddii aan horta idin xasuusiyo wiigii hore hal maahmaah oo hal xidhaala baan inoo diray halkaa maahmaahood waxay ahayd xagla laaban xoola kuma yimaadaan marka maasha allah intaan soo akhriyay komanka kusoo arkay saddex hablood baan arkay laga yaaba inay cid kale dhuumatay saddexdaa hablood waxay ahaayeen kow Sahra Cilmi inantay ugu qoran tahay maasha allah si fiican uga soo jawaabtay waxaa ku soo xigtay Mrs Wadaadyare waxay iyaduna maasha allah iyana faahfaahin aad u dheer waxaan ku cilmiyeysan bay ku sii dartay maasha allah waxay iyaduna ka soo jawaabtay inanta kale ugu qortay Faadma Saalax iyo Saalix saasa ku qoran ma filaya iyaduna maasha allah kale aragayaduna si uga soo jawaabtay haddaba walaalayaalow maanta barnaamijkeenu sidan buu u bilaabmayaa saddex iska ilaali kuma fiicna faanka badan iska ilaali iyo nimcada ilaahay ku siiyay inaad ku faanfaanto inkastoo Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku yiri wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith hadana waxa laga rabaa si asluubaysan hadaad rabto in lagaaga daydo oo khayr aad faafinayso ama wax wanaagsan oo soo bandhigayso ama wax yaani aad rabto inay ummaddu ku dayato hadaad u soo bandhigayso waa caadi waana la amaanay waana la rabtaa diinteena waa amaantay ma sha Allah laakiin se hadii aad kibir u soo bandhigayso iyo isla weyne iyo inaad ummadda ugu faanto kuma wanaagsana adduunyadaadana waxa laga yaabaa inaad il iyo carab iyo mushkilada ku soo jiidato aakhiradaadana kuma fiicna Allah subhanahu wa ta'ala qalbiga bini'aadanka uu daalacdaa marka iska ilaali faanka waxaad iska ilaalisaa feejignaan la'aantu sideedaba waxaynu ognahay qofka muslimkii iyo qof kastoo bini'aadan caqli lahiba inuu yahay qof soo jeeda xiliyadan aynu joognayna waxaynu ognahay inay ummadda sharkeedu iska batay oo dad badan oo sharloway ummadda iskaga dhex jiro marka adigu hadaa tahay qof muslina ama qof kale bini'aadan badii oo yaani ilaahay abuurtay oo caqli leh waxa fiican inaad soo jeedo oo ummadda mar walba yaani hawlahaaga gaarka iyo barnaamijyadaada aanad qof walba uga warimin sababta oo ah imika xaaladii hore maaha qofkii hore maaha waxaan ku soo isku aaminaa way iska yar tahay marka mar walba waxa ku fiican inaad qof noqoto taxadiran taasaana lagu amaanaya ta saddexaad waxa weeyaan ficiltanka waxaan filayaa waa shayga u badan imka ee ummadeena Soomaaliyeed ragaadiyay ama dib u dhigay ama waxyeelada u badan ka soo gaadho ficiltanku haddaynu si kala u dhigno waxa weeyaan argoosiguna waxaad moodaa inuu hadduu hadal yahay oo qowl u yahayna inagu badan yahay hadduu ficil yahayna inagu badan yahay imika waxaad arkaysaa yaani waxa godobta oo maxaa la yiraahdaa qofka haddii yaani qofba waxa uu qof wax yeelaya qof aan qofkii wax yeelayahayn oo yaani ehelkiisaba loo raadsanaya wixii laga jaraya ma wanaagsan waxa soo kale waxa kale qofku sameynaa kale qofba hadal oranaya markiiba qofku wuxuu rabaa inuu la ficiltamo ka daba qaato kelmad buu qof soo oranaya qofba ka soo daba hadlaaya waa ficiltan marka waxa wanaagsan inaynu iska dayno si aynu noqono ummad ma sha Allah aan yaani isku maqnaanin oo inta iyagu isku maqnaan lahayn ama istabagur lahayn ama dhibaatooyinkoodu inta raadin lahaayeen wax kale oo uga wanaagsan timekooda galiya waqtigooda ku qabsada saddexdaas marka halkaas ay ku dhamaadeen maahmaahda maanta waxa weeyaan mahal maahmaahood idinkaana insha Allah ta'ala soo sharaxaya ama ka soo jawaabaya maahmaahdaas waxay noqonaysaa barti yaqaan bari uma korodho maahmaahada insha Allah ta'ala bal waxa looga jeedo iyo halkay ku asal leedahay iyo waxa loo leeyahay barti yaqaan waxay tahay hadii la haydmo insha Allah ta'ala idinka ka soo jawaabi doona
intaynu dib u kulmaynana waxaan idin leeyahay share iyo like iyo subscribe ka quruxda badan waa xaggiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.